يا سلام soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaan ku dul istaagi doonaa badanaa taleefanadana markii aynu muddo haysano ama aynu waxyaabo sawirro iyo muuqaalo iyo waxyaabo badan aynu ku shubano oo ay ku dhacaan iyo dokumentiyo waxay noo soo qoraanay taleefankaasi waa ka buuxaa wax dambana kuma shuban kartid sidoo kale buuxitaankaasi wuxuu keenaa in culays taleefanka uu soo food saaro social media iyo barhi bulshadana isticmaali karin haddaba waxaan maanta isla fiirinaa ab cajiib aad u ah abkaas haddii aad Play Store ka taleefanka ka raadsid waa keelasa sidoo kale Apple Store kana waa keelasa haddaba abkaas muxuu qabanayaa abkaas wuxuu qabanayaa inuu taleefankeena ka saaro waxyaabo badan oo aynu ogeyn oo ay ka mid yihiin taleefankeena waxa mararka qaar ka buuxa waxyaabo loo yaqaan duplicate macnaha faylal laba jeer ku jira tusaale sawir laba jeer ku jira muuqaal laba jeer ku jira isla muuqaalkiina ah marka abkaas wuxuu ku tusayaa taleefankaaga waxyaabaha labada jeer ku jira waxyaabaha large files ka leh oo waaweyn oo taleefankaaga culayska badan u keenaya si fudud waa abka gudihiisa ugu dhaleedi kartaa haddaba yaana waxba sheekaydan ku daalan inuu gudaha u sii galno ta kale macnaha YouTube kana asxaabi meesha horta musawir ahaan bisaga yaala warba halka taabta nimanyo saas kale u taabta ka taabtaan halkaan idin keenaya 36 wuxuu haystaa subscribe iyo laba video baa yaala nin baalka soo galo ciidamada qoodhin iyo xiradin Play Store ka taleefankaaga tagaysaa waxa ku qoraysaa sida halka kaaga muuqata clean my phone haddii aad taabato abka noocan ku soo baxay hadda aniga way deeqsan yahay 1 milyan oo qof baan la dagay haddaba open baan dhahayaa gudaha nu sii galayaa okay uu soo kacayaa marka allow wax lagu leeyahay macna ogolaansho noosi inaanu gudaha u galno macnaha meediyada su'aal sawirrada muuqaalada waxyaabaha taleefanka ku jiraan gudaha u galno waana waajib waxyaabaha inaa u furtada okay allow haddii aan dhaho halka kore hadda wax kaaga muuqata marka meeshaas idin calaamadiyay taleefankayga aniga 35% baan isticmaalayaa 40 GB baan taleefankayga ka isticmaalay inta kale waa ay banaan tahay okay delete duplicated files hadda halka kore fiirino waxa weeye delete macnaha waxyaabaha labada jeer taleefanka ku soo laabtay sida sawirrada muuqaalada dhageysiyada dokumentiyada iyo waxyaabaha lamida marka gudaha u sii galaysaa hadba kii aragtid mid kastana aad delete karto soo sawirrada haddii aan fiiriyo uu raadinayaa sawirro laba jeer taleefanka ku soo laabtay uu search gareynayaa markuu soo qabto inuu soo laabanaa okay sida halka ka aragtaan waxyaabaha labada jeer taleefanka ku soo laabtay buu soo saaray marka mid kamid ah buu tick saaray waana delete kartaa halka hoos oo delete na waa ku qorata tusaale fahdiya sidoo kale laba jeer taleefanka ku jira marka haddii aad rabto halkaas ka delete kartaa halkan ka buuxo marka halkan oo dhan waxyaabihii copy ga lahaa marka waa iska delete aan dib uga sii buuxo halka labaad waxa ku aragtaa meel ku qoran tahay delete large files waxyaabaha fileska waaweyn oo taleefanka ku jiraan delete haddii aan gudaha u sii galno soo qabanaya marka soo laabanana okay sida halka ka aragtaan waxyaabaha taleefanka ugu waaweyn oo large fileska waa kuwaas waxyaabahaas oo large files taleefankaguna awood baan igu leeyahay inuu qaado laakiin adiga taleefanka waxa laga yaabaa inuu awood u lahayn inuu qaado marka iyagana waa iska delete kartaa waa calaamada delete ku dhinaca kaga qoran haanti yareed aan dib uga soo baxo marka abkan aad cajiib u ah weeye waxyaabo badan oo taleefanka aadan ogeyn buu ku tusayaa waana ka delete kartaa